مشاهدة كلمة دسين دونا مشاهد سهر هلقن الفنان صعب كاينوت الله waxaan u malaynayaa maaha markii ugu horeysay aynu ku kulanno wiigan dhaqanka waayo waqti hore ay noo horeeyay waxay ahayd baan u malaynayaa 4 sano ka hor inagoo halkii yareed ku jirna maasha Allah maantana halkan ku jiro inay jirtaba ma ogeynay baraha bulshadaydaan ku badnay new generation oo waan u malaynayaa dadkiiba wax baraysaano waxa ka mashquuliseen waxaan ina jiitay ayna dawaqiyay laguma dhaame dhaqaaqa hortay ibn aadanku isku diina uu noqon karaa isku dal uu noqon karaa isku dadna uu noqon karaa isku kalarna uu noqon karaa isku afna uu noqon karaa laakiin waxa kaliya tay ibn aadanku ku kala duwan yahay waa dhaqankiisa iyo halka ay ka soo bilaabeen dadkii dalkan iyo dadkan balaha dhaqankeennii hooyo marka aad baan ugu hambaleynayaa jaamacadda inay maxay ahaydee qiimayso qadariso hidaha iyo dhaqanka waxaad moodaana raggu raalliha iga ahaadaane hidaha iyo dhaqanka inaanu annaguuni nahay kuwa salka u dhigaa hadday caws noqoto iyo hadday kabad noqoto iyo hadday alool noqotaba sameeya sababtaasaan aanu u hadalhayn badnayn waayo waxaan dareensanahay ama aan rumaysanayba haddii uu ninintu fadhiisto caws iyo kabad samayn lahaa la odhan lahaa xariif magaalada jooga xariif miyi baa yimi la odhan lahaa waayo dee intaasoo waxa aynu kaga duwanay raggeenna ayaynu samaynay oon hiddo dhowr ku haynaa iminka 10 sano dhowr bilood baa uga hadhay waxaan u malaynayaana haddii nin samayn lahaa in dee cid waliba taageeri lahayd oo maxay ahaydee la garab geli lahaa oo la odhan lahaa aynu kasii ballaadhino intaa oo wax ka qurux badan maaha dhaqankeenu intan kuma eka wax ka qurux badan baynu haysanaa inta yar ee meelahan taalee lagu arkayo laakiin waxaan idinku hambaliyeynayaa inaa xasuusataan oo xustaan dhaqankeena aynu dadka kale kaga duwanahay aynu dadka dheernahay gaar ahaan dumarku adduunyada marka ad Yurubta iyo Mareykan iyo dhulka tagto qof waliba shub qaxootigii waxa la oran jiray shubkaygana hoo shubkaagana keentu biyo mooyana keena la isku tumee naamtii waxaagana la kaale waxaygana waan la imanaya adduunyadana waxa weeyaan mushaharkaagana keen mushaharkaygana keeno aynu waxda wada qaybsano innaga ayaa dadkan oo dhan uga horeynay haddaynu nahay haweenka Soomaaliyeed inantu iyadoo gurigeeda wadata ayay iman jirtay dadkani shalay bay dhasheen ayay iman jirtay laakiin waxa weeyaan waxay u baahan tahay in la qiimeeyo la kobciyo oo la kaalin geliyo wuu siqiiray dhaqankeenu iyo inaynu dhaqankeena dib ugu noqono waa waxaynu leenahay waxaynu dadka kaga duwanahay waxaynu jecel leeyaan waxaan idinku guwaabinayaa ragana ma aha inaan idinku yara tiiqsanaye inaad garabkiinni baa marane aad ka qayb qaadataan baan leeyahay jaamacaddana waan hambaliyeynayaa iyo madaxdana maan salaamin nin waliba meeqaamka iyo sharafta iyo karaamadu leeyahay iyo curiyayaasha halabuuradaba waan idinku salaamayaa waan idinku dambeysay raalli ahaada